dowladda hoose ee degmada Booramo muddooyinkii u dambeeyay ku hawlanayd dhismaha laba wado oo muhiim ah oo ka socda gudaha magaalada Boorama. Labadan wado oo muhiim u ah dadyowga kala degan xaafadda Hayayaaba iyo sidoo kale xaafadda Faaraxyood. Waxaana labadan wado ay haatan shaqadoodu socoto isla markaasina ay gacanta ay ku hayso dowladda hoose ee degmada Boorama ka warbixiyay habsami u socodka dhismaha labadan wado. Injineerka dowladda hoose Maxamed Cali Sheekh Faarax isagoona ka warbixiyay sida ay wadadani u socoto iyo sidoo kale muddada ay ku dhameyn doonaan ayaa waxa uu yiri bismillaahir rahmaanir rahiim maanta oo ay bishu tahay February 5 waxaan wadnaa labo mashruuc baan si isbarbar socdo wadnaa wadada Hayayaabo iyo wadada Sheekh Ali Jawhar tageysa Faaraxyo marka labadan mashruucba waxay ahaayeen mashaariicda noo qorshaysnaa 2019kii iyagoo sida ugu dhaqsiimo badan aanu fulin doono xagga gaab ka yimiday qolada funderka waxa labadan mashruuc ay ku soo gabagaboobi doonaan hadii la yiraahdo February hadii la yiraahdo inaan soo gabagabeynaa rajeynayna mashruucani wuxuu ka mid yahay mashaariicda ugu waaweyn ee degmada ka socda hadda marka hore dawladda hoose ee degmada Booramo waxay xalisay 2014kii wadada Sheekh Cismaan u baxda geeda xoolaha marta taasoo caqabad ku ahayd magaalada oo magaalada qaybteeda kala ka xidhnayd 2016kii waxay xalisay wadada Xaasleyda taasoo dhimasho xitaa ka dhacday dadkii dadku ku qaaday hadda waxaan xalinaynaa wadada Hayayaabo oo ka go'an xilli roobaadka magaalada inteeda kale waxaan rajaynaynaa mashruucan inuu ugu soo dhamaado sida ugu dhaqsiimo badan ee ugu quality fiican hadda waxa socota kala bixintii ciida compactionkii baa ku xigi doona kadibna waxaan dhamaystireynaa inaan gaamurkii saarno hadii la yiraahdo dhankiisa waxa isaguna halkaasi ka hadlay kana warbixiyay sida ay wadadani u socoto iyo muddada ay ku soo dhameyn doonaan injineerka shirkadda iyadoo gacanta ku haysa dhismaha wadooyinkani injineer Kamaal Axmed Cali ayaa waxa uu yiri waxaan mahad dheeraad u celinayaa district engineerka maayirka xogayaha guud ahaan dowladda hoose oo markastana la ag taagan wixii caqabadana uga hor yimaada say nooga banayn lahaayeen hadii aan ahay muxuu ahaa project engineerka Al-Fadli Construction Company oo ah shirkadda laba mashruuc ee Boorama qaadatay waxaan ballan qaadanayaa insha Allah saa ugu dhaqsaha badan leh inaan ku dhameyn doono laba mashruuc annagoo isku aqoonna si talantaaliya oo hadba kee shaqo nooga qabsoomaysa hadday habeen tahay iyo hadday dhagaar tahayba heeriyaho wala ag taagan Axmed Muuse Sheekh Xasan Axmed wararka telefishinka Sahan magaalada Boorama.